asxaabta barnaamijkan maanta waxa uu ku saabsan yahay ninka ugu taajirsan wadanka Shiinaha oo magaciisa la dhaho Jack Ma. sidoo kale Jack Ma waa mulkiilaha kambaniga Alibaba. barnaamijkan waxaan uga hadli doonaa sida uu uga hortagay guul darrada ka bogasho wacan. aabahayga taajir ma ahayn. 3 goor ayaan jaamacad codsaday, waa la iga soo tagay. jaamacadda Harvard 10 jeer baan codsi u dirsaday, wax aqbalaad ah kama helin. ugu dambeyntii waxaan ku biiray kollejka macallimiinta ee magaaladeyda. ugu yaraan 30 mar baan shaqooyin codsaday, nasiib darro ma helin. xilligaas waqti adag baa lagu jiray, aad baan u walaacay maxaa yeelay waxaan ahaa bara jaamacad, mushaarka la isiin jirayna waxa uu ahaa $10 bishii. mana awoodin in aan helo shaqo ka fiican taas. sanadku markuu ahaa 1994 waxaa igu dhalatay fikrad ku saabsan ganacsiga internetka. asxaabteyda iyo dad kale ayaan la wadaagay. 23 ka mid ah way iga soo horjeesteen. waxay igu dhaheen fikrad qaldan baad wadataa, wax internet la dhahana weliganaga maanan maqal, kombyuutarna waxba kama garanaysid. waqtigaas iskuma haysanin in aan saxnaa. qofna igama rumaysanin in arrintan ay hirgeli doonto. qof walba waxa uu dhihi jiray wiilkan si kaluu u fakirayaa, wax aanan la aqoonin buu ka fakirayaa. waxaan go-aan ku gaaray $3,000 in aan kasoo deensado bangiyaasha. muddo 3 bilood baan lacagtaas raadinayay, mana helin. ganacsato badan baan u tagnay balse way nagu gacan seereen. dad badan waxa ay dhahaan kambaniga Alibaba wax jira ma ahan. waxaan aaminsanaa kambaniga Alibaba inuu noqon doono mid saameyn leh haddii aan ku dadaalno. ismaan dheheenin heerkan baad soo gaaraysaa, laakiin ma niyad jabin. waxaan ku dadaalnay in aan ka miro dhalino riyadaas. run ahaantii ma fududeen. lacag $50,000 baan aroorinay, ganacsigiina waan bilownay. 3 sano ee ugu horreysay $1 oo faa'iido ah xitaa maanan suubinin. xaqiiqdii way dhib badneed. sababta iga dhigtay in aan horay u socdo ayaa ahayd in macaamiishayda i dhiirigelin jireen. waxay mar walba ii sheegi jireen in aan shaqo fiican bulshada u hayo. waxay igu dhaheen waadna caawisay, maalin maalmaha ka mid ahna waad guuleysan doontaa. hadalkaas waan rumaystay. waxaan soo kacaa kufnaba, ganacsigeenna waa uu kobcay. 16 sano kadib waxaan nahay group isku xiran oo la dhaha Alibaba. dadkana way nagu ammaanaan shaqada aan hayno. dadka badanaa waxayna weydiiyaan sidee kambani noocaan ah ku suubisay adoo marxaladaas ku jiray. Bill Gates, Jack Welch, Larry Page, Mark Zuckerberg, farqiga u dhexeeya dadkaani dad kale ayaa ah in markasta aysan niyad jabin. waa dad ku fiiriya nolosha indho caafimaad leh, cabasho ma suubiyaan. markasta waxay xalliyaan dadka kale dhibaatadooda. markii aad dhanka wanaagsan wax ka fiiriso, fursadda way imaanaysaa. dadka badanaa waxay i weydiiyaan Jack, fursadda aaway? ma shaqeeyo, waxba ma haysto, waxba ma awoodo. hantida ugu qaalisan ood haysato ayaa ah in aad tahay dhalinyaro. cabashada jooji. fursadda mar walba waxa ay ku jirtaa halka ay dadka cabashada ka muujiyaan. ka fakir sidee isbeddel ku suubin kartaa. markii fikradaas kugu dhalatana ha ka labalabeynin ee bilow. da'yarteena maanta fikrado aad u wanaagsan bay hayaan, laakiin ma suubiyaan wax ficil ah oo ku saabsan ka miro dhalinta fikradaas. haddii aad rabto in aad ganacsado noqoto, waa inaad la timaadaa fikrad ganacsi dadka kale inta aysan kaaga hormarin. waa inaad soo kacdaa dadka kale inta aysan soo kicin. waa inaad noqotaa geesi u bareeri kara caqabadaha soo wajahayo. maskaxdaada maal ka baxayn daabka. qof walbo, shaqsi walbo berrito waa maalin cusub. la imow horsocod, ficil la imow. muhiim ma ahan ganacsatada iyo asxaabtaada in ay kugu raacaan fikradaada. adiga is aamin. ku dadaal habeen iyo maalin. qaladaad suubi, waad ka caakufaysaa. haddii aad rabto noloshaada in aad hormariso, ka fakir rabitaanka macaamiishaada. maxaa yeelay markay dadka kale farxaan ama guuleystaan,
adigana waad guuleysan doontaa. Ha ka walwalin lacagta ayadaa dadka soo raadsato. Dadkana waa inay riyooyinkooda raacaan. Haddii aad riyo leedahay hadda bilow. Asxaabta, halkaas maanta waxaa noogu eg barnaamijkii ku saabsanaa Jack Ma uu ka joodiyey sida uu uga hortagay guuldarrada. Mahadsanidin. Haddii aad kanaalka ku cusub tahay fadlan subscribe saar. waad mahadsantihiin.